maanta oo bishu tahay 23 bishii afraad oo maalin khamiisa waxaan shirkii ugu dambeeyay aan la yeelnay danahay guddigii maareynta iyo kahortagga aafadani xanuunkan coronavirus dhammaan ganacsatadii intii badnayd ee ka shaqaynaysay jaadka oo muddo badan ay noo socotay wadatashi muddo badan wadatashi noo socday oon ka wada tashanaynay sidii xanuunkan maanta la wada ogyahay dhibaatadiisa looga hortegi lahaa qaadkuna la isla gartay inuu ka mid yahay waxyaabaha dadka isku keenaya ama bulshada soo ururinaya ama maaragtay taabashadii lagu kala qaadaya xanuunkan ee laga dagaalamayo kow ka ah oo dadkii mar walba ay dee xanuunkaas taabashadiisii iibkiisii dee boqolaal qof ay wada taabanayaan hal qof oo xanuunkaa qabaana ugu intaa oo qof u sarayn karayo shirkan oo ahaa shirkii saddexaad ahaa runtii waxay muujiyeen runtii wadaniyad weyn bay muujiyeen guddiga raggaa ganacsatada noo yimiday qaadka ganacsada waxay nala garteen in maanta ay wax walba ka muhiimsan tahay in la badbaadiyo nafaha ummadda reer somalilan iyaga naftooda nafta carruurtooda nafta ehelkooda nafta dhammaan reer somaliland oo dhan intii ilaahay ka sukaysay wixii la badbaadin karo la badbaadiyeyna way nala garteen waxaan isla garanay markaa in sidii dhulkii kale ee mujtamac isku imanayaba loo joojiyey ee ila masaajid la yidhi jamaca hala joojiyo iskuullada yaa la isku iman la yidhi in iyadana maanta waxaan isla go'aansannay oy nala qaateen runtii oyna kuna mahadsan yihiin in qaadkii ganacsigiisii muddo 25 maalmooda oo ka bilaabanta maalinta axadda oo ay bishu tahay 26 ilaa 21 bisha shanaad oo ah 2 cisho ka hor ciidda muddo 25 maalmooda inaanan jaad somalilan laga ganacsan lana keeni karin ayaan isla qaadan runtii waxaan markaa leenahay dhammaan maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga somalilan ka shaqeeya laga bilaabo maalinta axadda cidkii lagu arko inay jaad ganacsiga soo gelinayso ama jaad soo gelinayso nuucuu doono ahaadee dalka soo gelinayso waxaad ku amran yihiin ama la farayaa in gaadiidka iyo jaadka gaadiidkana hanti qaran yaho ay la wareegaan jaadkana maalintaa laga bilaabay in la gubo oo aanan dalka ku soo gelin sharci darro ku soo gelin cidda wadatana sharciga la horgeyn doonaa arrintaa waxaan ku adkaynaa dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulada gobollada iyo degmooyinka inay amarkaasi laga bilaabo axadda ay fuliyaan iyaga oo aan ka digayno maadaamay dadkii ka ganacsanayey ganacsatada jaadka ay nala qaateen runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayno runtii cidda kale ee waxaa wax ka hoos bilowdaa wixii dhibaato soo gaadho iyagaa isku qaba hadhowraya laga iyana ka maartay ka calaacalin sharciga la horgeynayo shayga uu hadhow gaadidu hadduu ku keenay hadduu ku keenaba khasaarahaasi saas ku qabi doona marka waxaan leenahay ummadda reer somaliland meela joogtaba waxaan isla garanay ganacsatadaasi inaan ka wada shaqayno sidii looga wada hortegi lahaa qudhooda oo farsam ahaan xukuumadda keliya maaha fulinta kuma eka waxay nala qaateen ganacsatadaasi inay weliba bishaa ay diyaar u yihiin ama 25 maalmood inay diyaar u yihiin inay nagala howlgalaan si si loo joojin lahaa markaa shacabka reer somaliland meel kastoo joogaanna waxaan ka codsanaynaa dee haddaan inagu wada qaadanno in wax xanuun baankani dhib nagu yahay inuu qof walba jaadka iska daayo 25 maalmood oo haddii dee la waayo qofkii cunaya la waayo kii keenayna la heli maayo marka waxaan leeyahay ummadda shacabka reer somaliland dhammaan meelu joogaba askar ha wada noqdaan ha laga hortago 25 maalmood jaad dambe oo dalka soo gala
iyadoo ay tahay danteenna oo aan ku wada badbaadinayno lafeena ku badbaadinayno inagoo ilaahay la kaashanayna bishaas oona barakaysanna ilaahay ka baryano in hawshaa aan ku heshiinay oo amaradaasi noo fulaan si nabad ay noogu dhammaato aad iyo aad baan maartay idin hambalyaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.